taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir Macalin Mahdi Cumar ayaa soo saaray amar culus oo weyn kadib markii al-shabaab ay weerareen habeen ka hor degmada Kaxda qaybo ka tirsan sidoo kale mucaaradka guryahooda ayaa la soo warinayaa in la duldhigay ciidan isugu jira booliis iyo military haddaba ujeedka muxuu yahay amarka Macalin Mahdi uu soo saaray waxa kale oo la sheegay inuu jiro awaamiir kale oo madaxda gaar ahaan ciidanka ilaalada madaxtooyada iyaguna dib u habeen lagu sameeyay awaamiir culusna la siiyo haddaba maxay tahay dhaqdhaqaaqa ciidan ee ka soconaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa kale oo eegaynaa kumu ahaa Jacfar Gurey nashqadeeyihii al-shabaab iyo khabiirkoodii dhinaca sirdoonka dawladda Soomaaliya waxay 3 maalin ka hor shaacisay in la dilay Jacfar Gurey oo ka mid ahaa ragga ugu sareeya al-shabaab waxa lagu dilay magaalada Bu'aale ee gobolka Jubbada Hoose waa xarunta gobolka Jubbada Hoose waan anaahda gobolka Jubbada Dhexe raalahaada waa Jubbada Dhexe Bu'aale waxa la sheegay duqeyn ciidamada dawladda iyo saaxiibada caalamiga ay iska kaashadeen in lagu dilay Jacfar Gurey oo xaamud loo yaqaanay ninkaasi 2006 wuxuu ka mid ahaa ragga ugu sareeya al-shabaab wuxuu la soo shaqeeyay Axmed Cabdi Gudane Ismaaciil Caraale oo hogaankii ugu sareeya la doortay Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo hadda wasiir Axmed Oobe oo hadda madaxweyne Jubbaland sidoo kale wuxuu hadda si weyn ula shaqeynay Axmed Deri oo ah ninka ugu sareeya al-shabaab haddaba geeridiisa maxay ka dhigan tahay muxuu al-shabaab u qaabilsanaa ninkan waan eegaynaa isbedelka ammaan ee ka dhacaya Muqdisho micnaha ay bixinayso in mucaaradka guryahooda la duldhigo ciidan aad u badan iyo waxa ay ka dhigan tahay in al-shabaab ay soo weeraraan degmooyinka duleedka magaalada ku yaal ama cirifka magaalada markaas ku yaal oo ay ka mid tahay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir qodobadaas aan eegaynaa marka hore soo dhawo muuqaalka like saar channelkana subscribe soo dhawo mahadsan tahay daawada hagaag wararkeena waxaan ku bilaabaynaa daawadayaal taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir gaashaanle sare Mahdi Cumar Muumin oo loo yaqaan Macalin Mahdi ayaa gudoomiyay shir gaar ah oo ay isugu yimaadeen saraakiisha booliiska ee magaalada Muqdisho kaas oo looga hadlayay xaaladaha ammaan ee soo kordhay saacadihii ugu dambeeyay kulankan oo ahaa mid toddobaadle ayaa waxaa diiradda lagu saaray xoojinta amniga guud ee Muqdisho iyo nawaaxigeeda si looga hortago falalka lidiga ku ah nabadgelyada ama ammaanka Macalin Mahdi ayaa ku amray saraakiisha inay laba jibaaraan shaqadooda ayna gutaan waajibaadka ka saaran xasiloonida caasimadda sidoo kale wuxuu faray saraakiisha iyo ciidanka booliiska ee ka howlgala ee magaalada Muqdisho iyo garoonka tuulada ciyaaraha ee Stadium Muqdisho oo ay ka dhacayaan ciyaaraha maamulka gobolka Banaadir uu soo qaban qaabiyay martidana ay ku yihiin Balcad iyo Warshax in ciidankaasina si gaar ah ammaankooda ay u gutaan sidoo kale maalintii Jimcaha oo la ciyaarayo finalka oo ay ciyaarayaan degmooyinka Howlwadaag iyo Warshax oo martida ay markaasi si weyn amniga qayb uga qaataan waxa kale oo uu markaasi saraakiisha booliiska caasimadda ku booriyay inay shacabka si dhow ula shaqeeyaan si loo xoojiyo amniga iyo wada shaqeynta bulshada kulankan looga hadlayay amniga ayaa ku soo aadaya xilli toddobaadkan al-shabaab ay markaas isku dayeen weerar arbushaada oo ay ka fuliyeen degmada Kaxda kaas oo looga hortagay ama kaas oo ay doonayeen in saldhigga degmada iyo meelo kale ay ku qabsadaan amnigana khalqal ay ku galiyaan laakiin ciidan ka tirsan police military kuwa markaasi haramcad iyo ciidanka qaybihiisa kala duwan ayaa ka hortagay laamaha amniga ayaa intaas kadib tallaabooyin amniga lagu xoojinayo qaaday iyaga oo howlgallo amni xaqiijina ka sameeyay daafaha caasimadda si kastaba Muqdisho ayaa hadda xasiloon waxaana ay ka nasatay qaraxidii joogtada ahaa dalalkii qorsheysnaa ee al-shabaab ay geysan jireen iyo sidoo kale weeraradii ku dhufo oo ka dhaqaaqda ahaa oo Muqdisho dhowr iyo 10 sano ee la soo dhaafay joogto ay ula kulmaysay isla wararka Muqdisho ee dhinaca ammaanka la xiriira intaynan ka bixin ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliya ayaa iyaguna dib u habeen lagu sameeyay si ammaanka sare loogu qaado dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dib u habeen waxa ay ku sameysay guutada 77 ee ilaalada madaxtooyada qaranka si ay u laba jibaarto shaqada adag ee ay hayso maadaama mas'uuliyad ay ka hayso madaxda ugu sareysa wadanka oo ka mid yahay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo madaxda kale ee wadanka oo guddoonka baarlamaanka laftirkiisa uu qayb ka yahay ilaalada madaxtooyada ayaa hadda mar kale dib loo qaabeeyay iyada oo isbeddello waaweyn lagu sameeyay qaybaha ciidamada iyo saraakiishooda muuqaal ay baahisay warbaahinta dawladda ayaa lagu soo bandhigay ciidan aad loo diyaariyay isla markaana wax laga bedelay qaab dhismeedkooda iyo moraalkooda isla markaana la sheegay in sugidda amniga madaxda ay qayb ka noqonayaan sidoo kale waxa ay soo bandhigeen dhoolatus cajiib ah oo markaasi
ay ku sameeyeen xarunta madaxtooyada iyaga oo sheegay inay u diyaarsan yihiin shaqada loo igmaday saraakiisha amniga ayaa sheegay in arrintan qayb ka tahay sare u qaadida aqoonta iyo sidoo kale tayada ciidanka koofiyo guduud ama koofiyo cas loo yaqaan ee ilaalada madaxtooyada maadaama ay saaran tahay mas'uuliyad aad u weyn oo ah muhiimadda ilaalinta madaxda qaranka oo ay ka mid tahay astaanta qaranka oo ah madaxweynaha ciidamadan ayaa horay u helay tababar gudaha iyo dibadda ah waxayna u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan wax kasta oo khatar ku ah amniga qaranka si guud madaxtooyada waxaa ka socda isbeddello waaweyn iyada oo xitaa wax ka bedel lagu sameeyay qaab dhismeedkeedii oo dhismihii hore duuga ahaa inta laga tagay ayaa dhismo casri ah loo dhisay madaxtooyada si kastaba xaaladda amni ee muqdisho muddooyinkan waa ay soo hagaagaysaa iyada oo shacabkuna ay aad u soo dhaweeyeen arrinkaasi waxa ugu wacan ee inta badan loo aaneynayana waa bulshada qaybtooda waxbaratay ee wiilashii dhalinyarada ahaa ee jaamacadaha ka soo baxay ee loo carbiyey dhinaca markaasi ammaanka daawadayaal geesta kale haddaynu eegnaan waxaa toddobaadkan halkan aan ku baahinay geerida mid ka mid ahaa raggii ugu sarreeyay al-shabaab oo lagu dilay bu'aale haddaba xog iyo macluumaad dheeriya ayaa markaan soo baxaysa dilka la shaaciyey ee hogaamiyihii sare ee al-shabaab oo lagu dilay duqeyn ka dhacday bu'aale ayaa waxaa soo baxaya xogo waaweyn su'aalaha kumuu ahaa jacfar guri ayaa ka mid ah waxaa daaha ka rogay nin udub dhexaad u ahaa ama wuxuu ahaa nin udub dhexaad u ahaa kooxda isagoo oo ku dhowaad 20 sano ahaa khabiir sirdoon khabiir maaliyadeed iyo khabiirka farsamada ee walxaha qarxa kooxda u qaabilsanaa saddexdaasi shaqo waa kuwa ugu muhiimsan ee uu soo qabtay sidoo kale wuxuu qayb ka noqday ama uu ahaa madaxa xalinta khilaafaadka oo dhowr jeer waxaad maqashaan al-shabaab ayaa gudahooda isku dhacay oo dagaalamay laakiin dib dambe looma sii maqlo dagaalkooda oo sii qarxa oo si hoos ayaa loo xalliyaa ragga xalalkaas ka qayb qaatana waa uu ahaa dabcan sida la sheegay dowladda Soomaaliya isniintii toddobaadkan waxa ay sheegtay in Maxamuud Cabdi Xaamud oo loo yaqaan Jacfar Gurey lagu dilay habeenkii 26 Oktoobar magaalada Bu'aale oo meel markaasi aan ka durugsanayn faris bar control oo ay ku leeyihiin al-shabaab koonfurta Soomaaliya dhimashadiisu waxay meesha ka saartay hogaamiye ruugcada ah oo si dhow ula shaqeeyay amiiradii ugu dambeeyay ee al-shabaab wuxuuna ahaa khabiir dhinaca howlgallada ah sidoo kale barnaamijyada Mareykanka ee abaalmarinta lacagaha qofkii xogtaas keena ayaa ninkan dul saaray $3 milyan ay Mareykanka madaxiisa hore u duldhigay cidii shakhsi ahaan markaasi ninkan keenta oo wuxuu ahaa nin $3 milyan ay kol saaran tahay halka cali dheeri rag la midka ah 5 milyan la dul saaray shakhsiyadda qarsoon ee Jacfar maxaan ka ognahay inkastoo oo Jacfar uu udub dhexaad u ahaa ama uu ahaa mid ka mid ah xubnaha argagixisada adduunka ugu khatarta badan haddana wuxuu ahaa sida markaasi shakhsi aad u dabacsan oo dhageysta dadka kala duwan adayga kooxda dhexdeeda markaasi oo waxay ugu yeeri jireen daacad macalinka iyo erayo kale oo ay markaas ku muujinayaan inuu yahay ninkan nin khabiira iyadoo oo Soomaalidu tahay badi bulsho u dhisan hab qabiileed haddana Jacfar Gurey lagama hayo wax xog ah oo la og yahay oo ku saabsan qabiilkiisa taariikhdiisa dhalashadiisa ama waayihiisii hore xataa waxa uu ahaa taasi waxay markaa keenaysaa in ninkan uu ahaa mid aad markaasi uga fog qabyaaladda iyo waxyaalaha kale ee Soomaalida dhexdeeda ah macluumaad ahaan taariikh nololeedkiisa waxay ka turjumaysaa waxtarka ay leedahay ama hay'adaha ammaanka ay u leedahay in ay beegsadaan al-shabaab oo ah faraca al-qaacida ee bariga Afrika waxay ka soo baxday midowgii maxkamadaha islaamiga ah ee dib markaasi duulaanka u sameeyay Ethiopia jabiyay sanadii 2006 ee Soomaaliya kooxdu waxay ka talisaa qaybo ballaaran oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyaga oo maamulo dawlad barbar socoto oo amaba sida dawlad oo kale markaas u shaqeeyo maxkamado leh nidaam canshuureed u gaar leh sidoo kale leh xabsiyo leh sirdoon ciidan jugta culus oo u dagaalamo kuwa jabhada waxa loogu yaqaan sida booliiska oo kale kuwa shaqeeyo xisbada la yiraahdo iyo nidaam kasta oo dawladeed oo kale u ekeysay inkastoo dawlad rasmi ah aysan ahayn haddana nidaam kala xadidaya ayuu ururka leeyahay sida lagu qiyaasay xogta qaramada midoobay dagaalyahanadeeda al-shabaab waxay u dhaxeeyaan 7 ilaa 12 kun al-shabaab wadarta guud marka la isku daro waxay gaarayaan baa la yiri 12 kun ugu badnaan ugu yaraana waa 7 kun waxay sameeyaan kacdoono waxay abaabulaan dhalinyarada da'doodu ay ka yar tahay 15 sano iyagoo oo tashkiilaya
sidoo kalena ka dhaadhiciya afkaar diineed oo xagjirnimo ah taas oo gaarsiisa heer ay naftooda kharibaan ama ay isqarxiyaan ilaa dhinaca amniga ayaa Jacfar Guri ku sifeeyay inuu markaasi ka mid ahaa rugcadaagii farakutiriska ahaa ee ka haray kooxda ee lala xiriiriyo hogaankii asalka ahaa ee al-shabaab ee hoostiga jiray amiirkoodii ugu sarreeyay ee Mareykanku qaarijiyay 2014 Axmed Cabdi Godane sida uu markaasi uga badbaaday iskharijintii gacan ka hadalka badnayd ee Godane ku hayay xubnihii gudaha ee iyagu markaas dhexdooda Godane waxa la xusuustaa inuu dilay rag badan oo aad u badan oo saaxiibadiis ahaa oo isugu jiray ajaanib iyo Soomaali maadaama uu ahaa nin aad xukunka ugu adag raggii taladiisa ka hor imaada waxa uu ahaa nin khaariji ninka marka wuxuu ugu badbaaday baa la yiri gacan furaantiisa iyo soo kale inuu yahay nin aad dadka u dhageysta daacadna u ururkan soona dhistay sidoo kale waxaad ka garan kartaa ninkan xogtiisa shakhsiga ah inaan si dhab loo hayn Soomaalidu waa dad qabyaalada u sameeysan inta badan oo markaasi qabaaliya waxay qaab qabiil ugu sheekaystaan waxyaabaha ku saabsan shabaabka dhexdooda sidoo kale waxay ka hadlaan waxyaabaha la xiriira qabyaaladda marka wasaaradda difaaca ee Soomaaliya waxay sheegtay in ninkaas la dilay lagana takhalusay wuxuu la soo shaqeeyay raggii ugu sarreeyay shabaab wuxuu ka mid ka ahaa milkiilayaasha kooxda waxa loogu yeero muddo ayuuna ka mid ahaa oo markaas si daacada uu shaqeynay guud ahaan mawduuceena intaas buu ku egahay muuqaalka like star channelkana subscribe soo dheh warkeenan jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay inaan ku soo biirnay dhalinyaradii cabanaysay labadii maalmood ee la soo dhaafay ee cabashada qabay runtii cabashada ay qabteen maalintii ugu horeysay waa la idin yimid waxaan ugu timaadeen taliska qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir waxaa la socotaa inaan cabashadiina dhageysanay in dhaga qaadnay qodobaynay in ka qornay madaxda qaranka oo madaxweynuhu ugu sareeyana aan gaarsiinay iyo ra'iisul wasaaruhu ujeedada iyo maqsadka aan u gaarsiinayna inaad tihiin dhalinyarada Soomaaliyeed inay muhiim yihiin dawladnimada iyo shacabka Soomaaliyeed inaad tihiin canshuur bixiyaal inaad tihiin dhalinyaro shaqaysta oo macno leh oo dalkan iyo dadkan wax u soo kordhiyay runtii inaad tihiin dad ay ku jiraan dad wax bartay oo ayagoo wax bartay inta shaqo waayay mootada inta qaarta ku shaqaysanaya xaqna inay u leeyihiin inay ammaan helaan hadday cabtaanna inay xaq u leeyihiin inay cabashadeeda sida dastuurku u qabo inay ku jeediyaan sidaa la socotaan dawladdu ma diidana iyo hay'adaha ammaanku midna inay cabasho gudbisitiin oo cabataan waxa aan diidanahay waa wax ku hoos qarsoon aan diidanahay oo aan ahayn cabasho muwaadin qaba wiilka mootada wada iyo hooyada Soomaaliyeed oo wax gadaysa iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan waxaan askar u nahay oo dawlad loo yahay waa shacabka inaan la shaqaysan inaan dhageysano oo u shaqeeyno diyaar u nahay cabashadiina dhageysanay oo qaadnay kadib ayaa banaanbax kala dhacay oo fawdo runtii waa la hadalna in wada la xiraa waa fawdo dhalinyaro fawdo sameeynaysa ahaayeen raggii banaanbax dambe sameeyay runtii wadadii xiray war cabashadiina hadii la dhageystay oo layna maqlay oo layna la fadhiistay inaad wada xirtaan oo meel jabisaan oo meel oo aad dhibaato geysataan adinkaan la wax macna ku jira ma jiro runtii banaanbaxaas wuxuu dhaliyay kala been abuur ma jiro runtii hal qof oo ama xabad ku dhacday ama dhaawac ama isbitaal yaala ma jiro isbitaalada caasimadda ku yaala waa la tagi karaa amniga caasimadan iyo gobolkan taliyaha booliiska gobolka Banaadir anahay qof keeni kara oo dhigi kara qofkaana xabad ku dhacdo ciidanka ku dhufteen oo xabadaha lagu dhuftan dhigi kara oo ma jiro hadalkaas waa been abuur cidii sheegtana waxaan leenahay fariin qaldan baa ay soo gaartay iska saxa ummadda Soomaaliyeedna yaalan mar habaabinin runtii waa ayaan daro ayadoo la joogo 2024 caasimadda dhexdeeda banaanbax ka dhacay in laga been sheego oo wixii la sheego waxaan ahayn aan laga sheego dhalinyaro waxaan ileenahay mar kale haddaad cabasho qabtaan xafiiska cabashooyinka waa idiin furan yihiin cabashadiinni waa gudbina madaxdan u gudbinay go'aanna waa soo baxa waa idinla qaadanay waa idinla garowsanay xanuunka in haaya iyo dhibka idin haaya gudoomiyuhu hadda uu ka hadlay madaxduna waa ka hadlaysaa insha Allah tacaala waxaan ka soo saari doonaa go'aan masiiriya oo xal waara waxa intaas dheer maxaabiistii waxa intaas dheer askarigii dhibka geystay ee dhibka u geystay mootaalaha waa xiran yahay asagii
maxkamadana la geynayaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo hay'adaha amniga shacabka inay badbaadiyaan ay u taagan yihiin shacab inay dhibaateeyaan uma taagna shacab inay dhibaateeyaan uma taagna waana in garab taagannahay waxa intaas dheer rabaa inaan sii raaciyo sida la socotaan cabashooyinkiinan intaan waa ka badnaa jireen ku dhawaad taqriiban 2 sano jooga qaybta guud ee booliiska gobolka waxa maalintii ugu horeeyay aan la kowsaday adinkoo ka cabanaya dilal waqti dheer ku soo socday oo dilal ah oo waa la dilay hebel xabad lagu dhuftay hebel dhaawacmay waa baxsaday hebel la dilay sida la socotaan cabashadaas hadda waa suushay ama waa yaraatay waxa ka cabanayseen habeenkii 6 saac in la celinayo oo 6 saac ka badan qofkii la qabto la ganaaxayo lacag laga qaadayo ayadana waa yaraatay waxa ka cabanayseen baabuurta waaweyn oo maalin iyo habeen shaqeynaysa oo dekada ka soo baxaysay oo jaamna in ku dishay mootooyinkana ka jabinaysay ayagana xalan oo helay waxaad ka cabanayseen kala wareeg in la yiraahdo ayagana xalan loo helo kala wareeg ma lan dhigi karaa ma jirin runtii intaas ma xalan loo helay ilaahay baa ku mahadsan Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan waxa ayadana xal loo helay oo wali khawaarijtu ay idin la rabaan inay dhibaateeyaan sida idin qarxi jireen ay idin qarxiyaan mootooyinkan ka qarxiyaan adinkana in dilaan ayadana ilaahay waxaan rajaynaynaa xal weyn loo helo sidii hore maahan inta kalena inay yaraataan rajaynaynaa waase haddii aad nagala shaqaysaan ammaanka haddaad diyaar u tihiin ammaankana nagala shaqaysaan mooto dambe khawaarij kaga qarxi doonta insha Allah ta'ala biidnillah